laba sano kadib 1979 waxaana xilligaasi ay ku beegnayd 2 sano kadib markii xorriyadeena aan qaadanay. ujeedooyinka xisbiga RBB loo asaasay ayaa ahaa inuu adkeeyo midnimada qaran ee dalka isagoo matalayay dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee iyagu u soo halgamay xorriyadoonka. haddii aan ku noqono wax yar taariikhda xisbiyadii siyaasadeed ee uu soo sameeyay aabihii ummadda madaxweynihii koowaad ee dalka Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon sanadkii 1977 ayaa ugu horeynba waxa uu asaasay xisbigii la magac baxay RBE. xisbigaasi oo isagu ahaa isku taga ummadda ee xorriyadoonka. xilliga la asaasay xisbigaasi ayaa waxaa la sameeyay golo baarlamaan oo ka kooban 65 xubnood. kadib markii xorriyadeena aan qaadanay ayaa waxaa la isku waafaqay in la sameeyo xisbi kale oo isagu daba jooga xisbigaasi RBE oo ay ku bahoobaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed oo gobonadoonkii u soo halgamay. 4 bishii Maaris 1979 ayaa xisbiga RBB lagu asaasay magaalada Dikhil ee midnimada ee koonfurta dalka ku taala. waxaana xilligaasi xisbiga RBB uu matalayay dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee dalka, cuqaashii, shaqaalihii sare iyo weliba culamaa u diinkii dalka. fadhigii u horeeyay ee xubnaha xisbiga RBB ay yeeshaan ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay magaalada Dikhil iyagoo ay isugu yimaadeen 125 xubnood oo xisbigaasi RBB xilligaasi ka tirsanaa. xisbiga RBB 10 sanadood waxa uu isagu ahaa xisbiga kaliya ee dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti ka jira. waxaana uu ku tallaabsaday mashaariic badan oo horumarina gaar ahaan dhinaca waxbarashada, dhakhtarada, wadooyinka iyo weliba mashruucyo kale oo ka hortaga saboolnimada iyo weliba haraadka dhulka reer miyiga ah. 10 sanadood kadib ayaa dalka waxaa xisbiga RBB oo isagu xilligaasi talada hayay uu hindisay in la keeno fikradda ah in dalka laga dhaqaajiyo nidaam ku salaysan xisbiyada badan. waxaana xilligaasi sidaasi faral ka dhigayay dastuurkii cusubba ee dalka laga sameeyay. xisbiga RBB oo xilligaasi uu horkacayay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon ayaa si nidaam dimuqraadiyadeed ay ku dhisan tahay waxa uu dalka ka hirgeliyay nidaamka xisbiyada siyaasadeed iyada oo markii 20 sano xorriyadda aan haysanay la sameeyay 4 xisbi oo siyaasadeed oo iyagu ku tartama talada dalka. fikradaasina waxay ahayd mid ay ku dheehan tahay maamul wadaagii madaxweynihii hore ee dalka naxariisi korkiisa haato ilaa eebba u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon. kadib dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka ayaa waxaa mar kale soo shaacabaxday in loo baahan yahay in la adkeeyo midnimada qaran ee dalka oo si wada jira looga shaqeeyo horumarka Jamhuuriyadda Jabuuti. xisbiga RBB ayaa isagu in badan waxa uu dadaal u galay in uu qaboojiyo dagaaladii waqooyiga dalka ka dhacay iyo inuu mar kale isku soo celiyo midnimada ummadda iyo qarannimadeeda. xisbiga RBB waxa uu ku guuleystay in heshiis nabadeed uu la saxeexdo xisbigii Fruud ee ummadda Canfartu ay lahayd xilligaasi oo heshiiskaasi lala saxeexday Axmed Diini oo isagu hormood ka ahaa xisbigaasi Fruud. kadib heshiiskaasi qalinka lagu duugay ee isagu adkeynaya midnimada dalka ayaa mar walba waxa soo shaacabaxaysay baahida loo qabo ummadda reer Jabuuti ay u qabto in ay midayso dhexdeeda, sidoo kalena xisbiyada siyaasadeed ay dhexdooda noqdaan kuwa ku midaysan horumarinta dalka. kadib markii heshiis la isla gaadhay 4 xisbi ee dalka laga sameeyay ayaa waxaa soo baxay 30 sanadood markii aan xorriyadda haysanay in la sameeyo isbaahaysi weyn oo xisbiga RBB uu hormood ka yahay oo isagu ah isbaahaysiga xilligani talada dalka haya ee EMB lagu magacaabo. ujeedada EMB ayaa xilligani iyadu waxa ay tahay in laga shaqeeyo horumarka dalka sidoo kalena la dhaafo wax kasta oo waxyeelo dalka u geysanaya. isbaahaysigaas oo dhan waxaa hormood ka ahaa xisbiga RBB
waxaana xisbiga RBB ka soo baxay labada madaxweyne ee iyagu dalka ka soo taliyay tan iyo markii xorriyadda aanu qaadanay. waxa kaloo xisbigaasi RBB ka mid ahaa saddexda ra'iisul wasaare ee iyagu talada soo qabtay. xisbiga RBB ayaa mar walba waxa xuddi dhaxaad u ah sidii ummadda reer Jabuuti u midayn lahaa sidoo kalena uga shaqayn lahaa nabadda iyo horumarka. taasina waxa ay hay'ad warbixin ku saabsaneyd taariikhda xisbiga RBB iyo dalka guud ahaan oo inoo soo diyaariyay wariye Cumar Cali ayna inoo soo turjumtay Aamina Xuseen. magaalada midnimada ee Dikhil ayaa isku diyaarinaysa gabagabada qabanqaabadan ilaahda munaasabada lagu xusayo sanad guraha 35aad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay ee xisbiga isku taga shacbiga ee horumarka ee RBB. magaaladaasi Dikhil ayaa ah tii lagu aasaasay xisbigaasi 1979 waxa hadaba ku soo dhawaataan hadda warbixin inoo soo diyaariyay wariye Cumar Cali oo inoo soo turjumay wariye Ramadaan Muuse. xarun goboleedka Dikhil magaalada midnimada qaranka marka la eego isdhexgalka dhammaan qaybaha kala duwan ee mujtamaca qaranka ee astaanta ay u tahay Dikhil waxa hubala inay si cad ugu qalanto magaca magaalada midnimada qaranka. magaalada xarunta gobolka Cokar ee Dikhil oo ku taala ku dhawaad 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ee magaalada madaxda Jabuuti waxay hore calanka hortii u mutaysatay magaca magaalada midnimada qaranka. maamulkii gumaystaha oo taxadir xoog leh ka muujin jiray inay midoobaan qaybaha kala duwan ee mujtamaca qaranku ayaa isagu mar walba ku guuldareysan jiray inuu siyaasad kala qaybsanaana ka hirgeliyo Dikhil. isku day kaste oo la xidhiidha kala qaybsanaanta mujtamaca oo uu soo maleego gumaystuhu ayaa mar walba fashilmi jiray markay tahay Dikhil. inkastoo tallaabadaasi naxariista daran ee kala qaybsanaanta mujtamacu ay ka hirgeli jirtay magaalo madaxda iyo gobolada kale dalka. dhinac kale wafdi ka socda ururka midnimada Afrika ee OIA ee waqtigaasi oo maanta ah midowga Afrika ayaa markii u horeysay booqasho uu ku yimid Jabuuti 1976 ayaa xaqiiqsaday wararka iyo macluumaadka uu baahin jiray waqtigaasi maamulka gumaystuhu ee ah kala qaybsanaanta mujtamaca reer Jabuuti marka laga reebo gobolka Dikhil. wafdigaasi ururka midnimada Afrika ee OIA waxay kala kulmeen waqtigaasi mucjiso magaalada Dikhil. dadweynaha reer Dikhil ayaa dibadbax ay ku soo dhaweeyeen wafdiga Afrika ku muujiyay midnimada qaranka iyagoo gacmaha haysta oo ku dhawaaqay ayaan doonaynaa dhammaantayo. reer Dikhil waxay maalintaasi daadka raaciyeen been abuurkii uu ka shidaal qaadan jiray gumaystuhu ee ku dhisnaa kala qaybsanaanta mujtamaca iyadoo maalintaasi Dikhil ay mutaysatay magaca magaalada midnimada qaranka. Dikhil waa magaalo ay wada degan yihiin Soomaali, Canfar iyo Carab iyadoo qaarba qaarka kale dhaqankooda iyo hidahooda ay si wanaagsan u yaqaanaan taas oo ka turjumaysa isdhexgalka guuleystay ee mujtamaca qaranka ee astaanta u ah qofka reer Jabuuti. sidoo kale markasto ay soo shacbaxaan muran iyo khilaaf soo kala dhaxgala qaybaha mujtamaca qaranka goobta lagu daweeyo ee lagu xaliyo arimaha adkeynta midnimada qaranka waa Dikhil. sidaynu ognahay taariikhdana waxa la xusi karaa degmooyinka Asceela iyo Abca oo ka tirsan gobolka Dikhil oo ah degmooyinkii ay ka dhaceen heshiisyadii iyo axdiyadii taariikhiga ahaa ee lagu soo afjaray colaada. heesta uu 20 sano ka hor ku luqeeyay fanaankii weynaa ee reer Jabuuti ee Saciid Xamar Qood Allah u naxariistee ee dawada Dikhil taala ayaa si cad u tilmaamaysa astaanta midnimada qaranka ee Dikhil. inkastoo fanaanku uu ku saleeyay waqtigaasi heesta jacayl haddana waxay ahayd heestu sarbeeb ka hadlaysay gobonimada dalkeena iyadoo dawadu ay tilmaamayso in furaha amba muftaaxa gobonimadeenu uu yaallo Dikhil inagoo og in muftaaxuna uu yahay midnimada qaranka ee astaanta ay u tahay Dikhil. waxaa si toos ah hadda hawada ugu jiro ku sugan magaalada midnimada ee Dikhil ee lagu qabanayo xuska sanad guraha 35aad ka soo wareegay xilligii la aasaasay xisbiga isku taga shacbiga ee horumarka ee RBB wariye Cumar Cali oo aan wax ka weydiin doono sida ay hawluhu ay u socdaan. Cumar Cali may maqashaa? Cumar Cali
bal waxaad nooga warantaa howlaha isku diyaarinta xuska sanad guuraha 35aad ee kasoo wareegay xilligii la aasaasay xisbiga isku taga shacbiga ee horumarka RPP ee lagu qabanayo maalinta Beritoole magaaladaasi midnimada ee Dakhil sida ay howlahaasi uga socdaan la isku diyaarinayo waad maadsantahay cabdiraxmaan sida runta hawla aad iyo aad u fara badan ayaa ka socda hameenkan caawa magaalada Dakhil oo ay ku soo qulqulayaan waftiyaal ka kala socda unugyada xisbiga uu ku leeyahay dalka dhammaan dadkaasi halkan waxaa loogu diyaariyey soo dhoweyn oo maalmahanba ay ka shaqaynayeen madaxda xisbigu halkan hameenka caawa qudheeda xaflad ayaa halkan la isku diyaarinayaa oo kooxo ka socda unugyada xisbiga kooxa kaloo sida Katmars ayaa halkan hameenkan caawa xaflad ku qabanaya berito waxa la wada sugaana waa xafladii weyneyd ee xuska sanad guuraha ka soo wareegay maalintii dhidbaha loo taagay xisbiga isku taga shacbiga ee horumarinta oo lagu aasaasay 1979 bishii 4 Maars magaalada Dakhil oo ah magaalada midnimada sidaas awgeed waxa madax badan ayaa ku sugan magaalada Dakhil hameenkan caawa waxaana ka mid ah Zahra Yusuf oo halkan garabkayga joogta Zahra Yusuf wasiirka arrimaha wasaaradda taageersiga aan iraahdo ka mid aha ama xilkeeda haysa sidoo kale waxay Zahra wasiir Zahra waxay tahay xogeeye ku-xigeenka xagga xisbiga guddiga howlfulinta markaan idhaahdo xogeeye ku-xigeenka qaabilsan arrimaha bulshada iyo dhaqanka Zahra habeen wanaagsan Cumar bal waxaad nooga warantaa sida la iskugu diyaarinayo run ahaantii sida u soo qaban qaabilsan xafladan lagu xusaya 4 Maars waad maadsantahay Cumar waxa weeyaan xafladan waxay ka mid tahay xaflado badan oo xafladan waxay wardhac u tahay xaflad weyn oo Beritoole tiraanka xanuunta sportka Dakhil lagu qaban doono oo la sugayo dad ka badan ilaa 5,000 oo qof marka xafladan waxaan doonaynay guddiga sare xisbiga siiba madaxa xisbiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu rabay inay Dakhil u noqoto hordhac xafladaha badan ee soo socda sida haanban la isla qaaday guddiga sare xisbiga hawlfulinta xisbiga wuxuu isla qaaday in la qabto Dakhil xaflad loo marti sharaf loo yihiin xanuunyaasha anagsiyaasha oo dhan xaflad lagu xoojiyo dhaqanka wadankeena xaflad lagu tuso wadankeenu wuxuu hayo amba noqoto hidiyo dhaqan amba noqoto xagga heesaha xagga fanaaniinta marka xaggan waxaan ka suganaa caawa waftiyaal ballaaran oo ka socda 5 gobol ubuuqta joora carta alsabiix iyo Djibouti waliba caasimada waxaan ka suganahay oo kale xaggan inay maanta ka heesaan meesha aan ku horjoogna Place Bernard meesha loo yaqaano kooxyaal waaweyn oo kooxda xisbiga RPP kooxda 4 Maars gacan macaan wagari iyo fanaaniintii gobolka iyo kuna soo diyaariyay heesa aad iyo aad u fiican marka insha Allah xafladan waxaan rajaynaynaa inay shicibka Dakhil si qurux badan uga soo qayb galaan waayo magaalada Dakhil waxay noo tahay xisbiga RPP waxay u tahay tusaale u tahay waa meeshii xisbiga la abuuray